gaabiyo dhamaantiin waa salaamantihiin runtii waxaan jeclaan lahaa caawa aad ugu farxadeyda ahaan lahayd in reer Stockholm qaar halka ay fadhiyaan laakiin nasiib darro reer Stockholm waa ceebaysanahay hal siyaasi waa soo saari weyne qaarkoodna waa caawa meesha ka maqan inkastoo cudurdaar sheegay aniga ma islihi inay cudurdaar kaliya ku maqan yihiin wajigabax inay la maqan yihiin asleeyahay sababtoo ah hal siyaasi xitaa waa soo saari weyne Bollnäs guuleysta insha Allah Göteborg guuleysta reer Stockholm waa ceebaysantiin maaya waa ceebaysanahay waa fiicnaan lahayd siday sheegeen siyaasiyiinta ama odayaasha qaar hortayda hadlay in habeen gaar ah oo looga dhigo laakiin de kulay ceebteen haddaan sheegno waxa laga yaabaa inaan marka dambe saxno inaan hal qof soo saari weyno annagoo caasimadda joogno intaasoo 10,000 oo cod Stockholm waa laga heli karaa laakiin waa ku guuleysan weyne eedana siyaasiyiinta kaliya ma laha annaga nafteena qaybteena aan ka leenahay waxaan rajaynayaa doorashada soo socota inaan bal sidaan ka fiicnaan doono is abaabuli doono dad soo saari doono ayadana waan rajaynaynaa insha Allah inta guuleysatay way guuleysatay laakiin aniga waxaan rabaa hadda hal qodob oo aad muhiim iigu ah doorashadan anaga aad cabsi u qabnay qolooyinkeena masaajidada Trusan Fundka waxaan ugu socday qorshe democratisering ah oo la rabay 82 milyan oo la siin jiray ururada muslimiinta miiska la soo saaray in la joojiyo tii waa naga baaqatay social ministerka cusub hadda arinta wuxuu yiri qashinka ku dar waxa suuxi hor ma jiraan aad baan ugu faraxsanahay waan u hambalyeynaa laakiin dhinaca kale sharciyo aad u adag aan ugu soo baxay waxaan rabnaa marka siyaasiyiintiina cidina hogaamin lahayd sida arintan uga hortagi lahayn sida Leila ku dhawaaqday ay sheegtay arintaas runtii khatarteedii leedahay waxaan u baahanahay marka inana jiheeyo annaga masaajidadeena garabkiina taaganahay haday banaanbax noqoto wallahi dhowr habeenan ka fikiraay labadii habeen oo u dambeysay aad baan cabsida iyo walwalkan 30 sano hadda jooga wadankan hadii hadda baasaboorka laga qaado iyo hadii la celiyo waxba walwal kama qaban laakiin dadkaaga dhibka ay qabaan way ku saameynaysaa sharciyo cusub ayaa nagu soo socda sharcigaas marka cidina hogaamin lahayd oo na dhihi lahayd hadda loo baahan yahay 4 sano soo socota ninkii miiska noo garaaci lahaa oo na dhihi lahaa hawshaas aan qabtay ayaan rabnaa waxaan aad ugu faraxsanahay kulligiin ina maanta mucaarad tihiin xitaa hal qofna kuma jira oo siyaasiyiinteena ama degmaha fadhiya ama gobol oo dawladda ku jira marka ma jira Ismaaciil kuma jiro center kuma jiro center obsession way degmada kama hadlaya aniga dawladdan ka hadlaya dawladda waxa ku jiro dhan mucaaradan marka kulligan mucaarad intaan noqono aan dawladda iska dhicino wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh